ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن فاونديشن أنا قومنا محمد عبدية لما ولا لها ميلان جوجنا بإلها نقولنا بديالو waxaan rabaa gabdhaha walaalaha inaan ka raali geliyo in muddo ah hadda maadaama dhowr jeerna layga soo codsaday fiidiyowyadii luqadda ku saabsanaa inaan soo geliyo aan ka gaabiyey laakiin insha Allah hadda ka bacdi waxaan ku rajaweynahay inaan usbuucii hal mar ugu yaraan soo geliyo marka insha Allah walaalahay idinkana maaragtay igu soo duceeya sidoo kale waxaan rabaa wiil walaal ah oo kommentaar ii soo qoray oo Maxamed Ibrahim inuu wato aan u maleynayo magaciisaas inuu ahaa oo isku khalday kelmadda Freud iyo Freunde ama Freund ama Freundinnen buu isku khalday marka walaalo waa ku mahadsan tahay in la is saxaa way fiican tahay laakiin Freud waa joy waa farxad ma garata Freud kelmadaha waxay ku kala duwan yihiin maxaa la dhahaa entay ku kala duwan yihiin Freud en kuma jirto Freunde ama Freundinnen en bay wadataa marka walaalkay waa kaaga mahad celinaya insha Allah laakiin la soco Freud waa farxad marka insha Allah walaalahay feedback baan idinka sugayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Transitive und intransitive Verben ficilada directiga ah iyo kuwa aan ahayn directiga laga wadaa transitive waa kuwa directiga ah intransitive Verben waa ficilada aan directiga ahayn Transitive Verben sind alle Verben mit einer Akkusativobjekt Transitive Verben waa ficilada ula socda accusative objektiga Transitive Verben können das Passiv bilden. Transitive Verbenka waxay kaloo dhisaan Passiv. Accusative Object wird dann zum Subject. Accusative Objectigu wuxuu markaa isu bedelaa ama noqonayaa subjectigi buu noqonayaa. Ja? Intaa la fahmaa fiican. Transitive Verben können das Passiv bilden. Das Akkusativobjekt wird dann zu Subjekt. Ja? Transitive Verben waxay kaloo dhisaan Passivkay dhisaan. Accusative Objectigiina wuxuu noqdaa wuu isbedelaa awal wuxuu ahaa objective uu ahaa hadda wuxuu noqonayaa subject marka insha Allah waxaan soo qaadanaynaa Beispielyaal ama tusaalayaal insha Allah Beispiel deckt den Tisch deckt waa transitive waa ficilkii oo transitive-ka ahaa accusative objectigi marka waxaa waaye den Tisch waa miiskii marka tusaaluhu muxuu ahaa yacni tusaale Beispiel deckt den Tisch miiskii ayuu goglay yaa ficilka marka waa deckt waa goglidii waana ficil transitive ah accusative objectigiina waxaa waaye den Tisch miiskii baa noqonaya waa objectigi miiska waa objectigu sidoo kale yacni mar walba inaad xasuusatid waaye accusative artikeladiisa maxay kala ahaayeen den die das marka Tisch oo miiskii ah artikelkiisi waxaa waaye der marka der maxay isu bedelaysaa den okay xusuusnow transitive silent yacni waa ficil directi ah yaa waa ficilka directi ah okay intransitive Verben waa ficilada aan wadan accusative objectiga yacni intransitive Verben waa ficilada aan wadan accusative object ma wataan sidoo kale intransitive Verben ma lagu dhisi karo Passiv intransitive Verbku Passiv ma dhisi karo tusaale Beispiel lacht wuu qoslay marka lama oran karo wurde gelacht ma soconayso taas waa khalad yaa
taas macnaheedu waxay tahay maxaa la dhahaa passive ma noqon karo er lacht wuu qoslay un laakiin er wurde gelacht ma soconayso waa khalad saa mu isticmaali kartid beachte iska ilaali ficilada qaar transitive iyo intransitive ba way noqdaan inaasaa ula socotidna way fiican tahay beachte iska ilaali ficilada qaar transitive iyo intransitive way noqdaan Beispiel tusaale is gestern gefahren ja shalay buu baxay oo kale accusative object lama socdo verbka markaas waxaa waaye intransitive waaye waa verb waa ficil aanan direct ahayn tusaalaha labaad Beispiel hat mich nach Hause gefahren accusative object ayuu wataa ficilka markaas waxaa waaye hadda transitive waa ficil direct ah Beispiel hat mich nach Hause gefahren accusative object ayaa la socda ficilkiina markaas wuxuu noqonayaa transitive waa ficil oo direct ah marka accusative objectiga xagee waaye mich aniga waaye hat mich ya mich ayaa waxay tahay iyo hat ya hat mich ani waayo accusative mich baa u taagan ya accusativekii mich baa u taagan hat laakiin ficilka oo maxaa la transitive-ka ah waxa waaye kelmadda hat ya transitive waa ficilka direct-ga ah mishna waxaa waaye accusative anigaa hadda yani maxaa la objectigi ya mich nach Hause gefahren anigii buu gurigeyga igeeyey qofkaas gurigeygu yani asaga waaye asaga aniga gurigeyga igeeyey ya laakiin maxaa la dhahaa markii hore oo intransitive ay ahayd wuxuu ahaa lacht wuu qoslay marka object ma lahayn ya accusative object ma la soconin hadda laakiin accusative object ah oo mich nach Hause baa wuxuu yahay objectiga accusative objectiga waa mich nach Hause ya anigu guriga igeeyey marka mich waa taqaaniin waxay u taagan tahay accusative okay